أنا أدري منه وحوالي أنه ما ممكن سمعتني بأنه كنت شوقينا الدليل ولا الجعل الحبار نجحنا ما يعني كانوا كويكو. الرحيم أنا مجال الحنجلال وقال لنا بالشيء عسكر قبلها وقال له وحوالي أنا نقول مرة من الدني دينه ما إنه أنا نقول ما آخر باننا ما آخر باننا يكون مرة أنا خصبي أنا تشوفون من الدنيا يكون مرة بنا وأنا قاعد على إنكم الدنيا إن الدنيا ما قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كان ودي مرة حنجلال وحنوي وقت على غاتيانا وحوي وقت شو ملاح العكس في شيء وحن لنا هاي كفيت معنا الدنيا وحن لنا هاي أنا ردي أنا كدمان بتلان محل هاي ماخر كم دقيقة ماخر شيء كشيء والله بلا طلع عواقب يوحنا متيسن يوحنا إنك ده حين بينو كلفرانا وحوي قبل كسناك يعرقلين تأكل ضعيف تيم تيان كده على إلهي يقصر يا كده عايزة وحاد كريان محل هاي إسسي مامو بس مثلا مامو كوي كان معين لا بساس أنا كريان نادان وتسجل لاي بولكن يديان كان أنا أسكال إدارنا كيننا إدارنا وديدنا هدارنا نتياه بنكيننا مامو كارم نقدر سنة أنا قاعد بولكن محل هاي يديان كان بتلدي سله قلنا رباية دوا الدنيا وش قيس قاعد شك عركة ما تمقالة شوفتنا وحليها ilma adeeryaal meeshan iska baxa dinac cidi kama rabto maamulka Puntland cidi kama rabto taaqo horiyo waxa uu dirayaa sida Siciidow markayna jibril awl ka soo baacisay cilbu ergaabra ka maqan tahay waa ku macna la'aan inta suldaanka ay daba garanaysaa taamirka ka gudbo hawahaaga qabso baakhir baa wax ka qabanay SSC baa wax ka qabanay wajigaaga waxaan u leenahay daliyow hadaad warsigeli dan wahaysid markii cirigaabo laga soo qaxay waxaad kaga qodbaysay xerada saara soonta annaga iyo Soomaaliland nabadgelyo naga dhaxaysa waxa weeye wax ku yaal arrin warsingeli ma jiraan aad baan naga noo soo dirin xildhibaano giridhe ah oo waxa weeye magaalooyinka ku wareegaya kuwa saaka ingool iyo guriga ku jiraan lagu ilaalinaya insha Allah waxa weeye sida ugu dhaxda badan haddaan ay degmada uga bixinna jawaab ku biirayaan waxaan leenahay dawladda Puntland dalku waa Soomaaliya halkan waa dalka Soomaaliya ka mid anagu waxaan hoos tagnaa Soomaaliya diniyo waxaan ku leenahay dal kasta aad tagtay waa sangaa waxa duqula dal kasta aad tagtay Soomaaliya hoos joogta ama Soomaaliya hoos joogna anagu maamulka ayar oo doon goosadka oo waxa weeye waxaan ku dhisanay waa run waxaan diro SSC Khatum marba leer dufteen oo niga amsu hadda idinku goosateen inaad maamul gaar ah noqotaan fariintayda waxa weey halka ku ekaado hadda halka ka xadgudubtaan waxiidan aan anaga mudnayn idinkana aad mutaysan ayay arrintu isu bedelaysaa waxaan rajaynayaa inaad maamulkiina ku ekaataan faragelinta ku haysaan gobolka Sanaag iyo Highland aad joojisaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda hogaamiyo waxaan halka fariin uga dirayaa cid kasta oo damiir leh dalka sidoo ku socdo in loo foojignaado waxaan fariin halka uga dirayaa golaha samata bixinta oo runtii magaciisu yahay samata bixin waxaan oran lahaa hadda dalkan ka dhaxaysaan magaca sheegataan ka dhabeeyo dalka samata bixin shirarka madhalayska oo meelaha lagu meermeereysanayo ama xubnaha golaha ku jira ee mararka qaar kood danaha gaarka ah leh waxba soo kordhin maayaan xaaladda Soomaaliya ku jirto waxay u baahan tahay samata bixin dhaba Puntland waxa ka go'an inay dalkeeda iyo deegaankeeda difaacdo dawladnimada Soomaaliyeed ee federaalka ah ka shaqeyso waxaan halka rabaa inaan ka ballan qaadno haddaan nahay mas'uuliyiinta dawladda inaan waxba ka akrin doonin si shacabkeena ugu noolaadaan nabad iyo deganaansho waxaan u sheegaynaa cadow kasta oo soo haweysta Puntland inuu casharo laba ilaa waan u arki doono hadii ilaahay mas'uuliyiinta dawladda iyo ciidamadu waxay amar ku qabaan oo kitaab ugu dhaarteen oo Ilaahay hortiisa u dhaarteen in ay ilaaliyaan oo difaacaan dawladnimada Puntland iyo dadkeeda waxaan rajaynayaa maalin walba dhagaxumo ma maqli karno qof kasta oo xuduudda gooya oo sharciga Puntland ka tallaabsada dawladdu waxay ka qaadi doontaa tallaabo iyadoo ciidamadeedu ay maqlayaan
sharcigaa sarrayn doona iyagoo duruuftooda adag tahay inay ilaashadaan dowladnimada Puntland laakiin shacabka Puntland waa jira waana jiri doonaa isagaana ku filan ilaalinta bulshadiisa iyo deegaankiisa